laakiin waxaan u malaynayaa in madaxweynuhu dee guuldaradii dadka ka soo gaadhay doorashada ayuunbuu niyadiis ugu dhigayey taageerayaasha xisbiga kulmiye ayaan filayey markaa walaal guushaas guul la wadalayay bay ahayd si alaale siduu doonayo loo yeelo si dalka doorasho ay u qabsoonto waxay ka tanaasuleen komishankii lagu muransanaa ee madaxweynuhu ku dhigay ee uu runtii gorgortan ka maqli waayey waxay aqbaleen agaasimihii komishanka oo ay ahayd in lagu tartamo ilaa xilligii cigaal oo uu soo magacaabay xogayii golaha wasiirada oo khasab ku noqotay in ay aqbalaan balse uu doorasho uun loo gaadho arrintaasi waxay khatar gelisay labada xisbi ee waddani iyo aheyd taageerayaashooda maadaama ay laba xisbi mucaarad ahaayeen laakiin waxay wax walba ugu liqeen sidii bal mar uun maadaama madaxweynuhu aanu tanaasuleynin doorasho u qabsoonto runtii waa la dhaqaaqay markii ay xisbiyada mucaaradka ahi dhulka wax walba dhigeen madaxweynaha mucaaradadii ka daayeen wixii uu soo jeediyeen ay ku raaceen waayo wuxuu ahaa sida qura ee doorasho lagu gaadhi karo sidaasi aan ahayn doorasho dalka kagamay qabsoonteen doorashadii alxamdulilah rabbilcaalamiin markii ay soo dhowaatay haddana carqalado kale ayaa bilaabmay oo aad ka warqabtaan murashaxiin maanta soo baxay ayaa xadhiga galay qaar kale ayaa waarana loo jaray iyaduna dulqaadkii xisbiyada mucaaradka ah ayaa runtii lagu dhaafay oo ilaa markii dambe erge gashay oo gudoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali uu ka ergeeyey waxaynu odhan karnaa guusha wax la tukumaba faynalkii la yimi 31 May waa guul qaranka Soomaaliland oo dhan wada gaadhay ku wada faraxsan yahay waa guul ay lahaayeen xisbiyada mucaaradka ah tanaasulka ay muujiyeen gaar ahaan labada gudoomiye runtii Faysal Cali Waraabi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waa guul ay lahaayeen shacabka Soomaaliland iyagoo duruufo adag oo kakan oo abaara lahaa oo xanuuna lahaa haddana intaaba u adkaysanayay inay kaararka marna bedelka qaataan marna ay diiwaangelinta galaan waa guul ay lahaayeen runtii murashaxiintii intaaba taagnaa ee danaynayay inay doorashada muddo dhaafka inta badan noqotay ay xaqooda helaan ay ka tartamaan oo runtii ay hawlo badan iyo kharashaad badan ay ku dhacayeen guushaas oo dhan waxay kamilantay markii loo dareeray 31 May ee si nabada ay doorashadii ugu qabsoontay ee shacabka Soomaaliland ay dhameystireen guushaasi guul xisbi gaar uu lahaa ma ahayn waxa runtii fahan u baahan madaxweynuhu shaqada loo dirsaday waxa ahayd inuu doorasho dalka ka qabto hadii isagu leeyahay uu bixinayay ma ahayn wax musabixiidu jaab ka soo saaray uu dadka ku caawiyay ama uu qaranka ku caawiyay ama aanu ku khasbanayn ma ahayn doorashadu wax faan keligii u noqonaya طبعا markii xisbiyadu u tanaasuleen isna doorashadii runtii wixii dhaqaale ka qabtay iyo hor soconteediiba uu qabtay isaga hogaaminayay hay'adda fulinta ee haday ammaan tahay iyo la shaqeynta komishanka guul la wada leeyahay oo komishankii loo tanaasulay oo qayb ku leeyahay shacabka Soomaaliland ay qayb ku leeyihiin xisbiyada mucaaradka ay qayb ku leeyihiin qaranka oo dhan uu qayb ku leeyahay warbaahintii daadiinaysay runtii riixaysa ay qayb ku leeyihiin ururadii civil society-ga ah runtii aan dawliga ahayn ay qayb ku leeyihiin dadkii duulka caalamka ee inoo yimi ee isha ku hayay markii dambana ilaa ay goobjooga ka ahaa ay qayb ku leeyihiin guul weyn oo qaranka oo dhan uu gaadhay waxaan filayay inuu madaxweynuhu guusha ugu wada hambaliyeeyo dadkii wada gaadhay ee qaybta ka ahaa maan filaynin anigoo madaxweynaha ixtiraam weyn u haya Muuse Biixi Cabdi in uu guusha gaar u sheegto oo yiraahdo xisbiga kulmiye ayaa guusha ugu weyn ee uu gaadhay ay tahay inuu dalka doorasho ka qabto shaqadii loo dirsaday bay ahayd laakiin waxaan u malaynayaa in madaxweynuhu dee guuldaradii dadka ka soo gaadhay doorashada ayuunbuu niyadiis ugu dhigayey taageerayaasha xisbiga kulmiye ayaan filayey markaa walaal guushaas guul la wadalayay bay ahayd kuma raacsanin madaxweynaha dadka Soomaaliland in badan oo kamid ah kuma raacsana waan arkay taageerayaal madaxweynaha ama xisbiga kulmiye kamid ah oo aad ugu faanaya inuu madaxweynuhu doorasho qabtay madaxweynaha shaqada loo dirsaday ee dastuurku dhigay ayaa ay ka tahay tiirarka ugu weyn inuu dalkan doorashooyin ka qabto waliba way ku muddo dhaaftay 3 sanadood iyo badh 4 ku dhawaad ba inaga baaba'ay oo aynan doorasho qaban